su'aal baan qabaa weli ma codays mise waxaad hilmaamta wixii nagu dhacay Are you okay? No, he's not okay. He's not okay. What happened? They put his fry his eye. tan ma hilmaamtay We're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. Ilan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage. We don't want them in our country. Let them go back to where they came from and xasuustu saas uma foga 6 bilood ka hor bay ahayd markii dhibkan na soo gaaray dadka loo socday way caddeen waxay ahaayeen annaga in a heavily Somali neighborhood in Minneapolis. City Council member Jamal Osman says armed ICE agents went to East African restaurants in the neighborhood and demanded to see people's IDs. maaha inaan kuu sheego muhiimadda codaynta dalkan 5 biri ayaa ka dhiman primaryga dimuqraadiga waxaa jira boos aad u muhiima oo laba qof ay ku tartamayso qoftan You voted for the Laken Riley Act last year, one of the president's top immigration bills. Do you stand by that vote? iyo gabadhan I am running for the United States Senate because I want people to be able to afford the lives they want to live. And it is why I support ripping ICE apart and holding them accountable. gabadhan waxay u taagan tahay waa wadan ognahay gabadhaana waxay u taagan tahay waa wada ognahay waxaan filanayaa haddeertaan basas in dadka lagu gurayo la codaynayo la aarsanayo lagana hadlayo awoodda aan ku leenahay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota walaalayaal waxaan u digayaa dhammaan dadka luqaddan fahmaya soomaaligana ku hadla in aan talaadada aad codaysid gabar waa Angie Craig oo su'aasha la isweydiinaya waxaa waaye xaggee jirtay markii ICE ay gabagabaynaysay magaalada Minneapolis ee Minnesota muxuu yahay fowrin rakarkeeda markay noqoto ICE gabarna waxaa waaye Peggy Flanagan waa qof ma seebaysan ugu dhow yahay communityga immigrantiga Peggy waa qof ku jirta communitygeenna waa qof ay endorse garaysay congresswoman Ilhan Omar waa qof timid nalana hadashay noona timid haddii la rabo ninkan Donald Trump in la tuso in awood aan ku leenahay Minneapolis waa in la codeeyaa haddii la rabo in la iska qabto dhibka uu soo wado iyo sharka uu soo wado waa inaad codaysaa talaadada meel walba aad joogtid no excuse haddaa 18 jirtid haddaa waayeel tahay haddaa busy tahay haddii aad tahay qof aan waqti u hayn xitaa waa inaad soo baxdaa oo codaysaa aadan hilmaamin wixii nagu dhacay dadka loo socda annagay ahayd I believe gabadhan gabar u istaagaysa caddaysay waaye in Donald Trump iyo rejiimkiisa uusan ummadda ku tutuman uusan dhib soo gaarsiinin marka su'aashaan kaga tegay waxaa waaye ma codaysay weli mise waa complain garaynaysaa fadhi ku dirir baa sheeko lagu hayaa ama TikTok live baa lagu jiraa waa muhiim inaad codaysid waa muhiim inaad soo baxdid waa muhiim in aan bedelno aqalka sare iyo aqalka hoose dalkan Maraykanka talaadada ayaa u dambaysa codayntii u codee dadka u taagan dadkaaga waan mahadsantihiin